malag baa qofka qabriga dhexdeeda ku sugaysa deedna way soo fadhiisinayaan waxay weydiinayaan saddex su'aalood man rabbuka man nabiyuka ma diinuka rabbigaagu kumuu ahaa baa la odhan doonaa ayaa ku rabbaynayey ayaa ku arsaaqayey ayaad macbuud ka dhigatood caabudaysay ayaad baahidaadiiyo baryadaada u sheeganaysay man nabiyuka nebigaagu ayuu ahaa mucallimkaaga ayuu ahaayo ayaad dhaqan iyo maaragtaan iyo nolosha ku dayashadeeda ayaad kaga dayanaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd baa la odhan doonaa marka qofkii muuminkii ee adduunka dusheeda ilaahay ku soo caabuday ee adduunka dusheeda ilaahay ku soo yaqaanay ee adduunka dusheeda ilaahay ku raalli gelinayay ee adduunka dusheeda nebigiisa muxamed calayhi salaatu wasalaam dhaqankiisii iyo sunnadiisii la yimiday waxau odhan doonaa rabbigay waa allah diintayduna waa islaam nebigaygii waa muxamed calayhi salaatu wasalaam waa rasuulkii ilaahay buu odhan doonaa kanaad i weydiinaysaan waa rasuulkaygii muxamed calayhi salaatu wasalaam waa ka ilaahay qur-aanka ku lahaa yuthabbitu allahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira wayudilu allahu aldaalimiina wayafcalu allahu maa yashaa ilaahay caza wajalla dadkii mu'miniinta ahaa ee adduunka dusheeda ilaahay kaga soo cabsan jiray ee adduunka dusheeda ilaahay ku baryi jiray ee adduunka dusheeda ilaahay ku raalli gelin jiray dariiqa nebiga soo raacay ee diintooda islaamka intay barteenna ku dhaqmaya ka shaqaynayey saddexdaas su'aalood ee qabriga qof walba lagu weydiinayo ilaahay baa u fudaydin doono ilaahay baa qowlka xaqa ku sugi doona baa la yidhi leanna su'aalaha mu'minku markuu ka jawaabo ayaa xagga samada laga dhawaaqi doonaayoo la odhan doonaa an sadaqa cabdii addoonkayga run buu sheegay afrishuuhu min aljanna firaash jannada ka soo qaado u gogla walbisuuhu min aljanna dhar jannada ka soo qaado u xidha waftaxuu lahu baaban ila aljanna albaabna jannada uga fura baa la odhan doonaa halkaa jannadiisii ha ka daawadee deedna qabriga dhexdeeda mu'minku uu ku seexanayaa jiifka qabriga dhexdeeda mu'minku maalinta uu ku jiifsado maalinka waa beriga qiyaamaha unbuu qabriga ka soo baxayaayo ogaada halka kii kale kaafirkii ama faajirkiina su'aal kastoo la weydiiye wuxuu ku jawaabi doonaa laa adri laa adri kama warqabi buu leeyahay deedna markaasaa la odhan doonaa laa darayta walaa talayta walaa htadayta ereyga iyo su'aasha qabrigee lagu weydiiyey ilaahay xaqa kama dhawaajiyo ilaahay dariiqa xaqee mustaqiimkana kuguma hadeeyo laa darayta ilaahayna kuma ogeysiiyo malaa'igtu madaraq xadiida ayay wadaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka mar hadday ku dhiftaan dhulka ayuu 70 xusul buu dhulka quusaya ayuu galayaa deedna inta uu ka soo baxayana madaraq ay soo qaadanayaan way ku celinayaan cadaabkiisa ilaa qiyaamaha waa sidaasuu rasuulku yidhi marka cadaab alqabriga allah inaga badbaadiyo walaalayaal qofka waxa soo socda aanan ogeyn waxa maanta adduunyada ka dhacayana ma ogaan kari ogow waa meesha soomaalideennu ay tidhaahdo waxa soo socda qofka aanan garan waxa joogana maanta ma garto labadan indhood ee kugu taalla ayatuha almuslima labadan indhood ee kugu taalla waxaa loogu talagalay in la adduunyadaada ku eego in la aakhirada ku eego meel dheer ka fikir oo ilaahay caza wajalla ha halmaamin annaasu niyaamun waidaa maatuu intabahuu dadku way hurdaan maanta way hurdaan goormay jeefkii hurdada ka kacayaan maalintay dhintaan ee qabriga la geliyo qof walba hurdada ka soo kici doonaa laa qabiil baa ku raaci walaa ubad baa ku raaci walaa dhaqaalaa ku raaci walaa siyaasad baa ku raaci walaa jaamacaddiiyo dibloomkaad diganaysay baa ku raaci walaa aqalladaad dhisatay baa ku raaci aaway dadkii magaaladan asaaska u ahaa ee dhisay ee soo asaasay may cidba kama noolo maanta halkaa iyakuba ay mareen baan innakuna ay mari doonaa marka adduunyadan inta aan joogno 60 sano 70 sano layna soo siiyey ilaahayna abuuray han caabudno oo ilaahay ha ka cabsanno oo cabsida ilaahay haddii laynaga helo walaalayaal nolosheenna adduunyada ku barakoobi walow anna ahla alqura aamanuu wattaqow lafataxnaa calayhim barakaatin min alsamaa'i waalard qaryad walba dadkaygu hadday ilaahay aaminaan oo ilaahay ay ka baqaan hadday ilaahay aaminaan oo wixii ilaahay wanaagay farayna ay la yimaadaan oo ilaahay ka baqaan oo macsiyadda xaaraanta iyo fisqiga iyo fujuurka ay ka baqaan oo cadaabka ilaahay daba socda ay kaga baqaan barakaatu samaa'i waalardi baan u furaynaa baa ilaahay yidhi maxaa maanta ummaddeennu marna la qaxaysaa marna la cabsoonayaan mar abaari noogu dhacaysaa mar qaxooti u noqonayaan wax kale maaha walaalayaal waa dunuubta innaku aan gaysannay weeyaan wamaa asaabakum min musiibatin
فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير إلهي بقرآنك إنه وشيغ أوله أدونك كوركيغ إنتا جوكتان بلاية مصيبة إنه ما دعضو إلا بلاية مصيبة هذا إنه دعضو وواحد قعميه نكون قيستين با إلهي دادا إنت بدلنا وابنقع فينا با إلهي ونقوم الصوع لنا عقوبة دين إلهي والرحيم وأنا حريص بدنيه إلهي ونون حريص أمر والبا والرحمة ديسا ورحمتي سبقت غضبي إن رحمتي تغلب غضبي ورحمتي وسعت كل شيء آبهن آدم عليه السلام مركي سورة ديسا للصورين لجوجيي الروح ذا اللقو أفو في بالليدي إنها وحكوها يبال العرش إيجا الليدي وحو أركي آيات القرآن وعرشك كقرآن آيات ديه إن ورحمتي وسعت كل شيء إلهي بالنا حريص تيدا أيا وحوى اللي وكب الله رتبه إلهي إلهي والرحمن والرحيم وغفور وشكور وعفو وكريم وحليم وستار بالمقعد إلهي إيك والرحمن أدونك أنت اللي جوغو وكان حريستيسو خلايق دونان أي قادي قال كنا نحريستيس أو كسي حنيو قال كنا لنا مارتان نحريست إلهي الرب وقود آيو قال كنا لنا ونبتقليده وقود عيار آيو قال كنا لنا بيها وكو عبايو قال كنا لنا هودي أكسجينك وكو هلايو والرحمن إلهي عز وجل الرحمن سقالي سقاشك مقع إلهي مقع اسم الذات مويانا مقع الله بعد السفوي كوحيقا الرحمن بالله قبل الرحمن وكان رحمة دي سعالم كودنا أي وذا قادي بقولنا حريصة إلهي جل وعلا أيو أبو ريب النبي قيدي هل رحمة أدونك إلهي أسودا دعيي سقالي سقاشك كرنا مالك قيامها أيا إلهي أدكتو أدوميهيسا مؤمنين إلهي وقلنا حريصا دون أبو رسولك صلى الله عليه وسلم هل نحريصا أيا خلائق أدونك ودن داقضي أو قادي أو هو يدو إلمها وقلنا حريصا إيسا أو اللباح إلميهيسا وقلنا حريصا إيا أو درواق إلميهيسا وقلنا حريصا إيا أو بسد إلميهيسا وقلنا حريصا إيسا أو أيد إلميهيسا وقلنا حريصا إيسا أو شبرت إلميهيسا وقلنا حريصا إيسا هل نحريصا أدونك ودن قادي ولا ليال سقالي السقاشا كيكا لوا محي وانا حريصة إلهي مالك قيامها الضوميهيسا مؤمنين تيا قبلها مؤمناتك إلهي وقلنا حريصا دون ويان الرحيم الرحمن الرحيم عفو معناه قوى محي وكمر والبا الضوميهيسا دنبي كستي أي قلان أنا كو قبنا إسكن دافا ويان نحريصة إلهي وحا كمدا بالليدي ملك خير كقرى يا خير مركز سميسو أما خير أتكو هذا الشو إسلام مركب أو قرابة الليدي لكن ملك الذنب قرأ يا مركب قف كادعو هذا يرى ما لا يعني يا كادعي إيش يا مال قلنا كادعي دكت يا وحير قلنا أي مغشي قفف كاير يرى كادع مركب ذنب كادعو ملك الذنوب تقرأ مركب هذا قرتد ملك خير كقرأ يبقى كل كجو هقرين سببتها معي بالله إلهي أسر نقي بالله أستغفر الله أري بالله كتب بدكين لح ساعدود بالله كاديابا لح ساعدود أي الله كاديا قفك مؤمنك قفك وكدعي بل إنه قفك كسر نقض إلهي وصل نقض وعفو وكريم إلهي كريم وكي ودق بحية بدنه ويان كريم دق بحية بدنه ساك أنت أنا هالكافر إذا عافمات بالله سوك عني لحاتي وكون مسترب بالله سوك عضي هذه نعمت كستو إلهي ونسي الأورن لها ملكة ورمى العكب بحية أو إنها العرق العكب بحية أو دقها العكب بحية أو هذا العكب بحية أو الصعد كالعكب بحية أو قعنتنا الاستعمال العكب بحي أو هوذا العكب بحي أو بيها مع العكب بحي موبيلك قعنت أتكسدتان هذه الرسيد لعكتها هذه كذا ماتو وزدمينا يا يوم مرتين كوسو دع مايو كونا صدع مايو هذا لك بحي مايو بل كورما هذه الأورن لها عندها قال العقد تكش بويدو لا عندها قوة كادمية وهذا الكواسك كاتاجيا ومقالك واستاجيا وسعودك واستاجيا هل كيف بني آدم كل عقد كيلنا هاي بل كورما إلهي الرحمة دي ساكو صعنا وكريم واقع إنه بريء إلهي أمر كيسوي إنه قبر النبيين وكيلها عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها وفق واقو أبريب النبي عليه الصلاة والسلام إساقي الريركيسية مقالديسية دادكيسية ونبض قبح إيا جيركيسية عافمات قبون من الله حنونين إيا قوت اليوم مالك وحو عنيين هايستبو نبي يدي
saddexdaa nicmadood qofka ku waabariista buu nebigu yidhi nicmaddii adduunyada taalloo dhan qofka waa la siiyo waxba kama hadhin